Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee cutubka shanaad ee casharkeena General Psychology-ga. Qaybtan waxay ku saabsan tahay emotions. Qaybtii horena waxaan kusoo aragnay motivation kusoo aragnay. Emotion qeexdiisu haddaba waa xagan. Muxuu yahay emotions? Waxaa la yidhahdaa dareen ama dareen muujin waxyaabahaas lagu macneeyaa. The Latin word meaning to move. Ereyga Laatiinka ee macnihiisu yahay baa la yidhi to move, dhaqaajin ama in la dhaqaajiyo. Is ayaa the source of both words used in this chapter over and over again. Ayaa baa isha ay ka yimaadaan ama meesha ay ka yimaadeen asalkoodii labadan eray ee cutubka in badan kusoo noqday ee kala ah motive iyo emotion. Labada eray asalkooda waa isku mid. Emotion can be defined as emotion hadda waxaa loo qeexi karaa the feeling aspect of consciousness. Dhinaca dareen ee consciousness-ka ama soo jeedka qaybta maskaxda soo jeedka maxay qaybta soo jeedka characterized by certain physical arousal taasoo ay dabeecad u tahay baa la yidhi ama lagu yaqaano certain physical arousal kacsanaan duleed oo gaar ah qaybada sida tusaalahan oo kale markuu ruux cabsanayo oo kale in wadnaha gariirkiisa oo batay waxyaabahaas sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa certain behavior dabeecado gaar that reveals taasoo baa la yidhi usoo bandhigta the feeling dareenka uu ruuxu qabo to the outside world dunida dibadda ka oo dadka kale iyo ay ka akhrisan karaan ruuxa dareenkiisa ana sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa emotionka an inner awareness of feelings ka warqab gudaha oo dareenkan uu ruux ka warqabo inuu cabsanayo inuu ruux laftiisa gudaha uu ka warqaba marka sidaa daraaddeed from this short definition qeexdan gaaban we can understand that waxaan ka dhex fahmi karaa bali there are inay jiraan three elements of emotion saddex xubnood ama saddex qaybood oo emotion ka kooban yahay oo qeexda markaad u fiirsato saddexdan la sheegi doono ayay ku salaysan tahay qeexda elementiga koowaad ama xubinka koowaad waxaa la qaybta koowaad physiology behavior iyo subjective experience saddexda qaybood ayuu ka kooban yahay dareen muujintu waxay ka dhigan tahay physiology of emotion waxay ka dhigan tahay ruuxu markasta uu emotion marka uu ruuxu muujinayo ama dareen muujinayo waxaa jira waxyaabo duleed oo dareenka la socda oo ku laban sida tusaale ahaan oo kale ruuxu inuu neefsiga ruuxu inuu dhaqsado oo si aad u neefsado tusaalahaan indhaha ruuxa waaweynaada afka oo qalala wadna gariirka oo bata waxyaabahaas oo dhan maxay waa qayb ka mid ah emotionki laakiin duleed oo la arki karo behavior iyaduna waxay ka dhigan tahay waxay noo sheegtaa baa la yidhi qaabka ruuxu u dhaqmayo marka emotionka noocaas tusaale ahaan oo kale waxaa ka mid ah facial expressions body movement iyo waxyaabaha kale lamidka tusaale wejiga ruuxu odhaahda wejiga ama wejiga waxuu ka muujinayo ka hadalka wejiga laga hadlo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa jirka waxyaabahaas oo dhan waxay muujinayaan baa la yidhi ruuxan sida uu dareemayo waxyaabahaas sidoo kale waxaa ka mid ah smiles muusoodka ruux hadduu muusoodo waad dareemaysaa waxay muujinaysaa tusaalahaan muusoodka waxay muujinaysaa farxad oo kale qaybtan u dambaysa elementigan ugu dambeeya ee emotionka kooban yahay subjective experience qaybtan haddaba waxay ku yeelataa bale ama waxay ku saabsan tahay turjumidda muxuu ahaaye dareenka inagoo wax ku suntayna dareenka ruuxa tusaalaan ruuxan physiology waxaan duleeda ka muuqday iyo dabeecadda muujiyay waxa inagoo eegayna ayaa ruuxii waxaan ku suntaynaa dareenka inuu wax yahay waan turjumaynaa tusaalahaan oo kale waxaa lagu suntay inuu yahay ama lagu aastay inuu yahay waxaasi cadho cabsi farxad murugo waxyaabahaas oo kale haddaba waxaa jira aragtiyo muxuu ahaa emotion ku saabsan saddex aragtiyood baan arki doonaa theories of emotion ta koowaad James Lange theory of emotion aragtida James Lange emotion ku saabsan in this theory aragtidan stimulus of some sort waxay leeyihiin caris nooc ama dareen nooc for example tusaale ahaan kaba soo qaada large snarling dog ay weyn oo dhawaaq badan bixinaya ay xayawaanku marka uu aad u dhawaaqayo weliba hanjabaad ku jirta la yidhahdaa ayaa ereyga snarling loo isticmaala tusaale ayaa producer wuxuu soo saaray a physiological reaction falcelin duleed this reaction which is the arousal of the fight or flight sympathetic nervous system falcelintan oo baa la yidhi kacsanaan duleeda ah muxuu ahaaye oo ah wanting to run inuu cararo tusaalehaan fight waxaa la yidhahdaa ruux marka waa iska flight waa baxso sheegan marka ayaa producer waxay soo saartaa bodily sensations dareenno dhanka jir ah such as sida increased heart rate wadna gariirka oo kordha dry mood afka oo qalala and rapid breathing iyo sidoo kale neefsiga oo dhaqso noqdo oo si dhaqso ah ruuxii uu neefta u tuuro James and Lange believed that haddaba labada nin James iyo Lange waxay aaminsanayeen physical arousal kacsanaantan dareen ee duleed sida tusaalahaan wadna gariirkan batay oo kale ayaa led to the labeling of emotion ayaa keenay ama horseeday emotionkiina aan muujino oo cabsidii ah simply put si fudud haddaan u dhigno buu leeyahay waxay ka dhigan tahay I am afraid because I am aroused ruux tusaale wuxuu leeyahay waan cabsanaya sababtoo I am aroused dareen marka wadnahii baa wadna gariirkayga waa bataa marka waxyaabahan tusaalayaashan oo dhan waxay sharxayaan maxay tusaalayaashan oo dhan waxay sharxayaan marka uu yimaado maxay
physiological arousal markuu yimaado kadib ayuu emotionkuna imanaya tusaalahanas jantuskanaas fiicneen tusaalaan snarling dog markuu yimaado stimuluska oo cariska waa snarling dog waxaa imanaya physiological arousal oo waxyaabahan sida tusaale wada gariirka oo bata iyo muxuu ahaay dhidid yimaado iyo kadib uu ka daba imanaya emotion aragtida James Lang theory marka hadaba waxay leedahay physiological arousal markuu yimaado kadib ayuu emotion ka yimaado oo cabsidii ama emotion waxyaabo kale uu noqon kara ayaga tusaalaheena waa cabsi aragtida labaad ee Cannon Bard theory of emotion hadda physiologist Walter Cannon and Philip Bard labada nin la kala yiraahdo theorized that waxay aragteen ay sheegeen that the emotion and the physiological arousal in dareenka waa dareen muujinta iyo physiological arousal kacsanaanta duleed oo kar inay dhacaan more or less at the same time isla waqti wax yar ama kala dambe isku waqti ay dhacaan bay sheegeen oo saalan sida su'aalahan muujinaya stimuluski snarling dog ay dhawaaqay muxuu ahaay jawaab marka la aragto waxaa ka horeeya subcortical brain activity hawl maskaxda qaybtan sare ay qabanayso kadib waxaa imanaya maxay physiological arousalki iyo emotionki hal mar bay wada imanayaan aragtidii hore laakiin waa maxay way kala dambeeyeen physiological arousal ka dhacay kadib iyo emotionki imanaya tan laakiin waa maxay labadooda hal mar bay wada dhacayaan aragtida saddexaad waxaa weeye ninka la yiraahdo Chichar iyo Singer aragtidooda cognitive arousal theory la yiraahdo waxaa la labada nin proposed that waxay soo saareen ama ay soo jeediyeen hindiseen two things have to happen laba shay horta waa inay dhacaan before emotion occurs inta una dareenku iman dareen muujinta intuna iman the physical arousal muxuu ahaay dackaashanaan dareen oo duleed ana sidoo kale labeling of the arousal base iyo sidoo kale arousalkii wax lagu suntayo iyadoo lagu saleynayo keys from the surrounding environment-iga ku salaysan iyadoo lagu saleynayo tusaale ahaan waxaa la yidhi for example if a person comes across a snarling dog ruux tusaale ahaan baa la yidhi haddii uu la kulmo ay dhawaaqayo oo hanjabaya while taking a walk isagoo ruuxaas lugeynaya the physical arousal kacsanaanta duleed oo tusaalahaan oo kale hair tracing garaaca wadnaha eyes opening wide indhaha oo ruuxa si weyn u kala baxaya oo indhaha furmaya is accompanied by waxaa wehelinaya oo la socda by the thought ama cognition waxaa la yidhaha fahamka ama aragtida ah oo ruuxu isweydiinayo that this must be true wadna gariirkan iyo indhahan waxani waa inuu cabsi noqdo saa darteed labadaas shay baa ka horreynaya intuuna imanin maxay emotionku intuuna iman then and only then kadib keliya will the person experience the fear of emotion kadib markay labadaas dhacaan keliya kadib ayuu ruuxu dareemi buu yidhi the fear of emotionka ama cabsida dareenka cabsida ah in other words si kale haddaan dhahno I am aroused in the presence of scary dog tusaale waa tusaale I am aroused tusaale dareen ahaan waan kacsan waan wadnaha gariiraya ama waan dhididaya markaan arko ay muxuu ahaay hanjabay ku cabsi gelinaya saa daraaddeed I must be afraid waan cabsanay saa darteed aragtidan waxay leedahay oo stimuluski marka uu yimaado snarling dog eygii muxuu ahaa hanjabayay markuu yimaado aad la kulanto waxa laba shay intaada emotion muujin oo cabsi muujin laba shay baa ka horreeya uu leeyahay oo ah ta koowaad waxa weeye cognitive arousal muxuu ahaay faham dhanka maskaxdaada iyo inay isweydiiso waxaan muxuu u xoogay oo ay surrounding environment-iga ay muxuu ahaay waxaan wuxuu yahay ay turjumaad uga raadiso iyo sidoo kale physiological arousal oo ah saalaan high blood pressure iyo high heart rate sweating waxyaabahaas inay yimaadaan iyo waxaas iyo dhiikar iyo wadna gariir koobata labadaas hal mar wada dhici kadib ayuu emotion ku imanaya marka haddaba saddexdan aragtida waxay kala duwan yihiin tan waa maxay physiological arousal kadib emotion tan laakiin labaad waa maxay physiological arousalka emotionku hal mar wada imanaya tan saddexaadna waxay leedahay laba shay baa ka horreeya intayna physiological arousalku hore iman marka sawiradan ayaa si fiican uga kala fahmi doonta cashirkeen intaas ayuu ku egyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu